mudanayaal marwooyin madasha jooga iyo guud ahaanba dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marti sharafta ka socota deegaanada walaalaha Soomaaliyeed iyo dalalka aynu saaxiibka nahay madaxweynihii hore mudane Daahir Riyaale Kaahin madaxweynaha xilka ka degaya mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha xilka la wareegaya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi sharaf weyn ayay ii tahay aniga maanta inaan halkan ka hadlo oo ah munaasabad taariikhi ah oo aynu markhaati ka nahay ama goobjoog ka nahay kala wareejinta xilka madaxtinimada dalka munaasabadanu waa astaan muujinaysa sida Soomaaliland dimuqraadiyaddu uga hana qaaday maanta waxaynu macsalaamaynaynaa madaxweynihii xilka ka degaya mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dawladdiisa oo dalka hogaaminayay muddo 7 sanadood ah oo maanta ku eg madaxweyne Muuse muddada 7 sanadood ah ee uu xilka hayay waxa la soo maray safar dheer oo guulo fara badan leh laakiin aan caqabadana ka badnayn caqabadaha ay jireen si gaar ah ayaa loo xasuusan doonaa xaqiijinta doorashooyinkii xorta iyo xalaasha ahaa doorashooyinkii ama doorashadii isbarkanaa ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada halaha laga aado golayaasha deegaanada iyo wakiiladu iyo doorashooyinkii madaxtooyada ee sanadkan dhacay waxay run ahaan yihiin doorashooyinkaasu tusaalayaal ifaya oo muujinaya horumarka Soomaaliland ka gaadhay dhanka dimuqraadiyadda qabashada doorashooyinku waxaa qiimo weyn u sii yeelay ama doorashada dambe gaar ahaan u sii yeelay degdega aad u aqbashay madaxweyne natiijadii iyadoo xisbigaagii laga guulaystay intaas waxa dheer dawladdaada oo awooday inay daboosho in ka badan 75% kharashkii ku baxay hawshii baaxadda lahayd ee doorashada waliba waxaa dheer inaad dawladdaadu ay muddadii ay jirtay ay mashaariic badan oo horumarineed ay samaysay waxaa soo ogaataa madaxweyne in hawlaha aad qabatay ay qiimo sii yeelan doonaan haddii aad dawladda cusub ee ka dambeysay aad si barbar taagto oo la shaqayso haddii aynu intaa sidaa ku sagootino maxamed sagootino madaxweyne Biixi waxaynu si diiran u soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo maanta la wareegaya xilka jamhuuriyadda xilka madaxnimada dalka ugu horeyn waxaan madaxweyne kugu soo dhaweynayaa hambalyo kaliya laab ah aad guusha aad gaadhay daraaddeed ama guusha aad dartay awgeed waxaa shaki aanu ku jirin inaad u diyaarsan tahay xilkaas marka laga shidaal qaato waayo aragnimada aad dhaxashay muddooyinkii dheeraa ee aad marna ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada marna hoggaanka xisbiga waddani sidaa darteed ayay kugu doorteen sababaha dartood bay ka mid tahay sababaha reer Soomaaliland kugu doorteen madaxweyne aad iyo aad baa dadweynaha reer Soomaaliland kugu hanweyn yahay waxa laga eegayaa inaad isku soo dhaweyso bulshada dhinacyadeeda kala duwan inaad bogsiiso oo aad dhaydo wixii booga ah ee Soomaaliland dhexdeeda yaala iyo marxaladda lagu jiro imika
madaxweyne waxaa ka hor taala marxalad adag laakiin waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad dhibaatooyinka jira wax ka qabato inaad mudnaantas koobaad siiso isku soo celinta sidaad isugu soo celin lahayd Somaliland da kala irdhowday oo aad ku dhiirato arrimaha sababta u ah wax ka qabashadooda annaguna madaxweyne diyaar ayaanu u nahay haddaanu gaar ahaan golayaasha qaranka nahay inaanu iska barbar taagno oo kula shaqeyno intaasaan ku soo gabagabeynayaa dadaydii waxaana aad kaaga baryayaa in ilaahay kuu fududeeyo xilka aad qaaday culus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته